الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وبكماله وبعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم suuradda burburisada waa suurad burburinayso faqriga, isha, xasadka iyo wax kasta oo xun. fadaa'isheeda ha la soo kooba haddii la yidhaahdo intaan laguma soo koobi karo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. walaalayaal waan idin salaamay dhammaantiinna meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan. waa walaalkiin sheekh cabduraxmaan. waxaan doonayaa maanta inaan soo gudbiyo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala suurad aad u qiimo badan. suuraddaasoo ah suurad allah subxaanahu wa tacaala qofkii ilaahay uu baro ama qofkii akhriya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siinayo faqrigii inuu ka baaba'o oo ilaahay qaninimo ugu bedelo, xasadkii inuu ilaahay ka baabi'iyo, ilaa hadday hayse ishii ilaahay waa ka baabi'inayaa. wakadaalika sidaasoo kale sixirka iyo waxyaabaha xunxunka oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala hadday hayeen wuu ka burburinayaa, haddaysan hayninna wuxuu oga dhigayaa xijaaban mastuuran, xijaab buu oga dhigayaa. walaalayaal, haddaba waxaad isweydiinaysaan suuradda qiimaha badani waatee? suuraddu waa suuradda ugu dheer qur'aanka, balse ha nixin haddaad suuradda adigu garanaynin. waxaad ka shidan kartaa, waad shidan kartaayo way duuban tahay. waxaa lagaa doonayaa oo keliya suuraddaas inaad akhrido ama aad dhegaysato, maxaa yeelay ficilkii waa isla meeshii oo keliya. alqiraa'a unbaa la rabay, qiraa'adiina way timid. waxa weeye walaal, haddaadan aqoonin suuraddaasi waad shidanaysaa. maalin kasta haddaad awoodi karto waad shidanaysaa, ama maalin kasta waad akhrinaysaa haddii aad awooddo. haddaadan awoodinna 3 beriba hal maalin ha moogaanin suuraddaasi. waayo faqriga ayay la dagaalantaa, sixirka ayay la dagaalantaa, isha ayay la dagaalantaa, xasadka ayay la dagaalantaa, barakada ayay u soo jiidaa gurigaas iyo qoyskaas iyo maaragtaa tijaaradaas. barakada ayay u soo jiidaa. waa suurad aad u qiimo badan, waa suurad aad u weyn, waa suurad aad u qiimo badan, waa suurad aad iyo aad u fiican. marka walaalayaal, waxaa la doonayaa lambar kow inaad tahay qof taqi ah, ilaahay ka cabso. qof kastoo ilaahay ka cabsado ilaahay wuu aqbalayaa dacwaadkiisa. inamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin. ilaahay ka cabso, shantaada salaadoodna xifdi. intaa kadibna waxaa lagaa doonayaa suuraddaasi maalin kasta inaad hal mar akhriso haddii aad awooddo. haddii kale 3 maalinba hal maalin gurigaagayaysan ka marnaanin iyo goobtaada ganacsiga. haddii adiga aadan garanaynin, laa ba'sa, dhib ma leh. waxaad shidanaysaa sheekh markaa aad jeceshahay oo culummada quraada ka mida, mid ka mida ayaad shidanaysaa oo suuraddaasi min awal ilaa aakhir kuu akhrinayo. waad aragteenoo hadda way iska sahlan tahay. jeebkaa lagu wada wataa moobeelladii, halkaa unbaad ka daaranaysaa suuratulbaqara intaad geysato, waadna dhegaysanaysaa. inaad dhegaysotaasi lagaa rabaa, la soco. inaad dhegaysato ayay ku wanaagsan tahay weye, khayrka iyo barakadana ay ku jirtaa. intaasaan walaalayaal doonayay maanta inaa idinla wadaagsado. waadna mahadsantihiin walaalayaal. kanaalkan waxaan ugu soo gudbiyaa wax kasta oo faa'iido u leh dadka muslimiinta. walaal ka qayb qaado kanaalka inuu faafo. laygta riix. laygtu lacag ma aha, dhibaatana kuuma geysanayso. annagana waxay noo tahay waxgal, waayo waxay kor u qaadaysaa muuqaalkaasi tayadiisii inuu meelo badan gaaro. adigana ka qayb qaado insha allahu tacaala. midda kale, adigana kuma seegi doono. mar kasta oo laygta aad ku dhufato, muuqaal kastoo lasoo dhigo si toosa ayuu kugu maaragtaye soo dhacaya. haddii aadan ahayn sabscribe noo ahaynna sabscribe noo dhe, gambaleelkana furo. biidni illaahi tacaala halkaasaan ka wada soconaynaa. fawaa'id fara badan baan soo wadaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala.
aan noqono dadku walaaloobo diinta iyo khayrka iyo wanaagga insha allahu tacaala. xumaha waa la faafiyaa walaalayaal, khayrka ha la faafiyo. khayrka ayaa mudan in la faafiyo, in la dhegaysto, in la jeclaado, waayo danteennii baaba ku jirtaba, nolosheennii baaba ku jirtaba. intaasaan doonaya maanta inaa idinla wadaagsado. hadalkana waa idinku dheereeya, raalli ahaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.